kulankan lagu soo bandhigay waxqabadkii wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah ee sanadkii dhamaaday ee 2016 ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasiir duulaha agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha waaxda maalgashiga iyo mas'uuliyiin kala duwan ee wasaaraddaasi shaqaalaha iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa munaasabadan ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga oo ka warramay faa'iidada ay leedahay in sanadkiiba mar la soo bandhigo waxqabadka wasaarad walba iyo wixii u qabsoomay waxaana hadalkiisii kamid ahaa runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan waaxaha wasaaradda ganacsiga sida fiican ay u soo bandhigeen waxqabadkii sanadkiina dhaafay insha Allah sanadka cusub ee inaan rajaynayno inuu si ka wanaagsan aanu barnaamij ugu talagalno runtii dhammaantiin aad iyo aad baa mahadsantiin waxa inoo ballan sanadka cusub inoo bilaabmaya wasiiradii cusbaana inoo joogaan dhalinyaro ah oo runtii aan isleeyahay wax badan bay qaban karayaan shaqada wala kala qaybin doona shaqadu sidii hore aan mayso qof walba waxa la siin doona priority-ga iyo wax ku shaqeynayo iyo shaqadiisa ninbaa si fiican u shaqeynaya waxba si wanaagsan oo aad u wanaagsan u shaqeynaysa wax soo saaraysa waxina inta badan way iska hurdaysaa waxina wax la mid noqon mayso mid walba il gaar ah lagu haynay hadii la yiraahdo dhammaanba mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa sidoo kale waxay tilmaameen sida loogu baahan yahay in ay yeeshaan dhammaanba wasaaradaha dalku isku xidhnaansho intaa ka sii ballaaran maadaama ay qaranka mas'uuliyad ballaaran u hayaan